السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha waan islaamay waa walaalkiin shakuur oo mar kale iyo video kale su'aalo ka jawaabayo looga soo diray Instagram-ka wiil walaalkeena wuxuu ii soo weydiiyay lacag baa waxa ugu jirtaa Trust Wallet ayadoo USDT ah wuxuu rabaa inuu u wareejiyo Binance waana xasuusateen video ka horeeyay video channelka ku jiro oo Binance markaad lacag ka soo diraysid oo Trust Wallet taa dadka badan way yaqaanaan oo way fiirsadeen qofkan arkina insha Allah video goos ka fiiri sida Binance lacagta looga diro oo Trust Wallet loo diro laakiin hadda su'aasha taagan waxa waaye Trust Wallet waxa igu jirta lacag oo USDT ah way xadidan tahay waa USDT marka lacagta USDT da waxaan rabaa inaan Trust Wallet inaan Binance u diro marka maxaa dariiqadeen maraya okay taas baan isla fiirinayna insha Allah waxaan ku aadayaa Trust Wallet because Trust Wallet ka USDT da Trust Wallet ku jirto aad bay u badan tahay waxaana ugu caansan waa isla eegi doona insha Allah waxaan meeshan ku qorayaa waxaa imaaday labadan calaamado kor waa taabtay research-gaana tabanaya USDT marka waxa ii soo baxayso dhowr USDT kuwa ugu caansan waa USDT network ku dhisan tahay TRC20 USDT network ku dhisan tahay PEP20 iyo USDT ku dhisan network PEP2 iyo midda afraad oo USDT oo ku dhisan networkiga Ethereum ERC20 marka midkan koowaad markaad diraysid waxaa u baahan tahay maxaa la dhahaa waxaad u baahan tahay ii sheeg network wuxuu ku dirayaa networkiga Tron marka waxaa u baahan tahay lacag yar oo Tron inay kugu jirto midkan PEP20 labadan PEP waxay u baahan tahay smart chain hadii lacag kugu jirto ayadana ama BNB lacag hadii kugu jirto lacag yar ayadana waa okay middan saddexaad Ethereum USDT Ethereum kulaha middan networkiga ku dhisan tahay Ethereum USDT ayadana waxay u baahan tahay inaad lacag kugu jirto Ethereum marka middan koowaad waa Tron midda ay ku dhisan tahay haddaan dhahno noo dir diritaankii markaan imaano wuxuu naga dalbanayaa adresskii iyo lacagtii intaan dirayno tusaale waxaan dhahayaa 100 markaan dhaho adresskii waxaan aadayaa Binance baan aadayaa kadaal u noqo Binance markaan inta imaado deposit kan tagayaa waxaan ku jiraa Binance Pro gaan ku jiraa deposit markaan tago waxaan inta ku qorayaa USDT markaan inta ku qoro waa taabanaya marka wuxuu weydiinayaa networkiga rabtaa waa aragtaan inta dhowr network baa ku jiro kii hadda aan fiirinayn waxa waaye Tron TRC wuxuu isiinayaa adreskan isiinayaa adresskana copy dhahaya marka waxaan aadayaa Trust Wallet adresskiya waxaan leeyahay meeshan pass okay saa markaan sameeyo $100 oo igu jirto tusaale waaye lacag iguma jirto USDT $100 oo USDT oo ku jirto Trust Wallet waxaan rabaa inaan u wareejiyo Binance anigoo isticmaalayo networkiga TRC20 next aan nahay adresski wixii dhan waa ii saxsan yahay laakiin inta waxaa la iska rabaa network fee-ga meeshaan haddaad aragtaan waxaa ku qoran 100kan haddaad diraysid waxaa u baahan tahay TRC20 على الأقل 18 coin oo TRC20 waa taqaaniin coinka waxa qiimihiisu waxaan u maleynayaa inuu hadda ma xasuusti intuu qiimo marayo bal sugaan fiirinay coinka tag
tron qor TRX waa 10 cent موجودة 10 cent waaye marka wuxuu naga dalbaday markii wuxuu naga dalbaday 17.9 aan u maleynaya networkiga okay 17.9 17.9 hadda u qeybisid $1.80 wuxuu imaanayaa halkii coin wuxuu kugu fadhiyaa 9.94 almost $10 centigii oo aan ka arkaynay meeshan waa almost same marka adi waxaa u baahan tahay inaad soo gadatid dhowr coin $5 xataa mise $4 aad ka gadatid Trust Wallet mise Binance aad ka soo dirtid mise Trust Wallet naftigeeda aad ka gadatid okay Binance haddii wax kuugu jirin lacag kuugu jirin laakiin Trust Wallet lacagtan aad ku haysatid oo laakiin ay kugu xayiran tahay oo rabtid inaad dirtid Tron aadan haysanin marka xalka maxaa waaye marka xalka waxa waaye inaad Tron ka gadatid exchange desk exchange la dhaho decentralized exchange oo ka mid ah PancakeSwap marka PancakeSwap waxa ku xiraysaa Trust Wallet-kaaga adi waa haysata USDT wax ku gadatid laakiin USDT-daada ma diri kartid because waxa laga rabaa fee marka maxaa waay xalku waxa waay inaad Google aadaa PancakeSwap ku qortaa PancakeSwap ka bacdi connect aad dhahdaa wallet-kaaga markaa connect dhahdid uu kuu soo qabto wallet-kaaga markuu kuu soo qabto meeshaan BNB ay ku qoran tahay waxaa leedahay waxaan rabaa USDT-da lacaga kugu jirto meeshaan ay ku tusaysaa haddii ay soo qabatay balancing ay ku tusaysaa intana meeshaan cake ay ku qoran tahay waa taabanaysaa waxaa leedahay Tron aan leedahay TRX iyo soo qabaa leedahay okay marka waxaan leeyahay waxaa ii gataa $10 kule fee baa laga qaadanayaa $10 markaa dhahdid wuxuu ku siinayaa 98 Tron oo ku siinayaa 98 Tron markuu ku siiyo haddii aad taqaano sida wax kan loo sameeyo marmar wuxuu ku weydiinayaa wuxuu ku dhibayaa meeshan cusub buu ku dhibaa laakiin coinkan kuguma dhibaayo marka ani hadda because lacag iguma jirto USDT ima tusaayo meeshan sida loo gato wax looga gato Trust PancakeSwap video kala jiro ka fiirso insha Allah ka bacdi markaas waa arkaysaa marka lacagtan waxay ku imaanaysaa Trust Wallet markay ku imaato Tronka ka bacdi taas waxa u isticmaalaysaa asafi ahaan u isticmaalaysaa lacagtaadi badneed oo USDT-da waxa ku wareejinaysaa Binance waxaan u maleynayaa inaad fahamtay sheeko dheer waaye laakiin waxa ka fudud haddii Binance lacag kugu jirto inaad Binance ka soo dirtid Tron u dirtid maxaa la dhahaa ii sheeg u dirtid Trust Wallet haddaad Trust Wallet haddaad u soo dirtid Tron way ka fudud tahay meeshan laakiin haddii lacag kugu jirin Binance marka waxaa ku qasbantaa inaad Tron inta ka gadatid ya markaad gadatidna aad u isticmaashid asafi ahaan marka videoga intaan ku dhamaynayna insha Allah waa salaam